Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan wayda wada salaamay asxaabta ku xiran YouTube channelkeena ku soo dhawaada. Maanta cashirkeena wuxuu ku saabsan yahay sida aan u samayn lahayn car motion. Runtii waxaad leedahay cashirkaasi daradhow sooma aanan soo qaadan. Haa, laakiin midkaas wuxuu ahay gaari kaas oo soconayo straight line. Inta badan kaasna waxaan u adeegsanaynin expression ama code sidaad markaasi aad u taqaano. Car motion kan wuxuu kaga duwan yahay kii hore. Kani wuxuu sameynayaa hadba meeshaad rabto ayaad ula leexinaysaa oo rotation ayuu samayn karaa. Laakiin midkii hore wuxuu ahay in mid straight line ku socdo ayuu kaliya yara ahay. Waxaan u adeegsanaynay expression. Laakiin midkaan uma adeegsan doono wax expression ah waqti badan kaagama lumi doono haddaad videogan aad si wanaagsan aad u daawato. Waxaan ku jirnaa koorsadii Adobe After Effects. Waxaan rajayn doonaa mar dhow inaan soo gabagabayn doono koorsadaani ana ka jawaabi doono su'aalaha markaasi aad ka qabtaan Adobe After Effects. Marka insha Allah yaan war badan idinku daalinay ku soo dhawaada muuqaalkan. Sida u jeedo horta marka ugu horeyso folderkan ayaan ku yara shaqeyn doonaa. Sida u jeedo folderkan hadeertan waxa ku yara jiro backgroundka iyo gaariga. Haddii aad gasho website-kii Freepik waad ka helaysaa labadanba meeshaas ayaan kala soo degay ama waxaan ku soo dhigi doonaa labadan file qaybta description-ka ayaad kala soo degi doontaa insha Allah. Ugu hore marka aan soo furano software-keena Adobe After Effects. Markaan soo furano Adobe After Effects, ugu hore marka waxaan sameysanaynaa new composition. Composition-keena ayaan furaynaa kadibna sida u jeedo project-gana magac ayaan u baxsanaynaa. Kadib markaan intaan aan qorano duration-ka aan u rabo oo timeline-ka aan ku yara shaqeyn doono, waxaan rabaa inaan ku yara shaqeeyo adiga tusaale 20 second oo kaliya ayaan ka rabaa. Kadib marka waxaan leenahay okay ayaan leenahay. Marka sida aan u soo gelino gaariga iyo background-ka ugu horeyn laba jeer ayaan inta click siinaya ama waxaan leeyahay file kadibna waxaan ka sii leeyahay open. Labada option way ku banaan tahay. Marka inta ayaan double click iskaga siisanaynaa si aan u soo gashano. Marka hadda sida u jeedo labada file inta ayay ku yara jiraan. Marka labada file select ayaan saarayaa kadibna waxaan leenahay import. Marka import aan dhaano sida u jeedo midba goonigiisa ayaa loo soo gelin doonaa. Haddii aad rabto wadada hadeertan waa mari kartaa. Sidoo kale waxaa jirta haddii hal aan u soo gelinayno kale. Tusaale waxaa dhici karta inaad hal aad u soo geliso Adobe After Effects fileshani. Marka tusaale waxaan marka ugu horeyso aan soo gelinaynaa background-ka. Markaan background-ka aan soo gelino wuxuu ku soo qorayaa qaab sidaan ah. Marka ugu horeyso muuqaalkii hore aan ka soo sameynay car motion-ka waxaan adeegsanay composition. Waayo waxaan rabnay file-kaasi waxyaabaha uu ka kooban yahay dhan inaan adeegsano. Hadda file-kan waxyaabo far badan ayuu ka kooban yahay laakiin waxaan rabaa inaan margin aan ku sameeyo oo hal file aan ka wada dhigo oo ma doonayo layeradiisa kale inaan isticmaalo. Marka waxaan dooranayaa footage kadib waxaan leenahay margin layer. Sida u jeedo marka file-kan waxaa lagu soo yara sameeyay Adobe Illustrator-ka. Haddaan dhoo juice marka wuxuu leeyahay dhammaan layero far badan ayuu ka kooban yahay. Marka aniga ma rabo inaan layeradan mid aan ka adeegsado. Kaliya marka waxaan leenahay margin kadib waxaan leenahay okay. Markuu file-ka sidaas uu isku keen qabto kadib waxaan soo gelinayaa haddana mar labaad gaariga ayaan soo gelinayaa. Asagana sidoo kale margin ileen logo aan hadeertaan aan dooranayo aan ka ilaalinayo ma jiro. Waayo gaariga qaybta sare ayaa laga yara sibirayaa. Marka waxaan leenahay okay. Markaan okay aan sidaan ku dhahno marka ugu horeyn timeline-keena waxaan soo gashanaynaa background-ka. Marka background-ka waa kan waan soo yar jiidaynaa waxaan keenaynaa qaybta iyo timeline-ka. Marka sida u jeedo composition-ka aan ku shaqeynayo iyo background-kaani isku size ma ahan. Marka sidaas haddii ay tahayna waxaan rabaa inaan background-ka aan ku fit gareeyo shaashada. Ugu horeyn marka waxaan soo furanayaa electaasi kadibna waxaan leenahay transform. Kadib waxaan kasii dooranayaa scale. Inta badan waxaad aragtaa anigoo adeegsanayo in sheyga aan doorto kadibna S aan taabto sidaasna ee scale ee ugu soo baxdo waa isku wada mid labada wadaba. Marka had scale-ka ayaan kordhinaynaa xoogaa oo ku yara weyneynayna shaashada. Cabir ilaa intaas markaan yara keenno kadib aniga qaybtan kore ayaan ka rabaa qaybtan gaariga baakiman ma ka rabo. Marka waxaan leenahay haddana anigoo layerka noo dooran ayaan waxaan leenahay P position kadibna qaybtan hoose noo soo yara deji qaybta kore nagaragey. Marka waxaan ka rabnaa kaliya wadadani in aan ku baraatikeeno. Markii aad sheyga aad weyneyso scale-kiisa xoogaa yar quality-giisa waxaad u maleysaa inuu yaro dhumay. Sida u jeedo file-kaani xoogaa yar blur ayaa soo galay. Marka waxaad kaliya isticmaali kartaa si aad nadiif aad ugu dhigto button-kaani oo transform vector-ka ah. Isla markiiba marka waxaad arkaysaa in sheygaaga oo rasterize lagugu sameynayo qaab quality-na lagugu soo bandhigayo. marka kadib marka waxaan leenahay fit screen. Marka waxaan rabnaa baabuurka hadeertan aan soo gelin doono in uu inta uu ka bilaabo
inuu inta uu kasoo bilaabo oo kadibna dhinacaani sidaan oo ugu yara baxo. Marka si aan u sameyno ugu horreyn marka waxaan rabnaa shaygan maadaama aan margin kasoo dhigna aan wadadani pathkeeda aan koobiyeysan karin kaliya waxaan ku khasbannahay inaan shape aan sameyno. Marka ugu horreyn iska fiiri marka intaadan shape-ka paint tool-ka aadan adeegsanin iska fiiri in marka ugu horeyso uusan layerka kuu doornayn. Haddii layerkani uu kuu dooran yahay kadibna paint tool-ka aad ku yara shaqeynayso waxay noqonaysaa qodob kale oo masking ayay noqonaysaa. shape gooni oo madax banaan haddii aad rabto in lagu sameeyo kaliya meel banaan kliki ku sii si layerka lagaaga qaado kadibna waxaad leedahay paint toolka ayaad dooranaysaa. marka paint toolka aad doorato ugu horreyn marka wadada intee ayaa laga yara bilaabayaa. marka waxaad leedahay adiga inta oo kale inta ayaa laga yara bilaabayaa. paint toolka ayaan dooranaynaa kadibna meesha laga yara bilaabaya ayaan dooranaynaa. markaan doorano midna iska ogow paint toolka waa in iska xirtaa fiilka inta kaliya ayaad dooranaysaa kadib cancel ayaad leedahay. xoogaa yar waxaan rabnaa strogana asagana inaan ka yara dhigno adiga 12 oo kale. kadib marka waan yara calaamadin waxaan raacaynaa riigmadani ayaan raacaynaa kadibna lineskani ayaan la raacaynaa. kadib buttonkan kale xoogaa yar sidaan ayaan u qulucinaa kor ayaan u yara baxayaa si uu laynka uu ku yara toosiyo. xoogaa yar haddii khalad aad ka dareemayso kaliya laynkani wuxuu quseeyaa qaybta soo socoto laynkani wuxuu quseeyaa qaybtii hore. marka alt ayaan qabanaynaa waa la yara simeynaa. marka sidaan aan sameyno kadibna laynkan sida u jeedo qaybtan sare ayuu naga aaday kaliya alt ayaan qabanaynaa oo laynka inta ayaan yara keenaynaa. marka inta aan yara keenno kadibna wadadeena sidii ayaan kusii wadanaynaa. marka si aad screenka aad sidan ugu soo socotana waxaad qabataa keyboardka aad ka qabataa space barka iyo kadib muuska lift clickta ayaad isla qabanaysaa. marka laynkan haddii inta aan ku joojino baabuurka markuu inta marayo wuu joogsanaya. marka xoogaa yar space yar aan click kale aan ku siino si uu cabir kale asagana noogu yara sameeyo. marka sida u jeeda hadeertaan xoogaa yar inkastoo aan layniskan si wanaagsan u sixin waayo adiga kaliya ayaan kuugu yar tusinayaa. marka hadeertaan aan sidaan aan sameyno hadeertaan waxaan soo gashanaynaa gaariga waa marka midkan kadibna waxaan kusoo yara jiidaynaa qaybta iyo timelineka. marka sida u jeedo marka gaariga iskeelkiisa aad ayuu u yara weyn yahay wadadana aad ayay u yar tahay. marka kaliya gaariga layerkiisa ayaan dooranaya kadib s ayaan keyboardkeena ka taabanaynaa. tusaale adeeg waxaan leenahay cabir 19 oo kale ayaan ka yara rabnaa kadibna zoomin aan kusoo dhaweyno. gaariga marka waxaan dhahnay inta ayuu ka bilaabanayaa xagga ayuu usii dhammaanayaa. marka meeshuu ka bilaabanayo waa inaan yara geynaa kadib zoominka aad adeegso si wanaagsan u adeegso. sida u jeedo marka gaariga waxaa ku yara furan xoogaa yar bolor yar ayaa ku furan kaliya waxaad dooranaysaa transform vector. kadib marka gaariga xoogaa yar dhinkan ayuu u khuluucan yahay oo rotation ayaan adeegsanaynaa. gaariga dooro kadibna rotation r taabo keyboardkaaga kadib rotationka sidaan usoo yara sax. markaa sidaan u yara saxdo kadibna haddana b position xoogaa yar dhankan usoo yara badi. marka intaan hadeertaan wadada aan ku aadinay oo aan intaan sameyno ugu horey marka waxaan rabnaa in wax yar aan isla fahmno. sida u jeedo hadda laynkani shape-ka haddaa aan kusoo jiidaynin paint toolka muhiimadeena waxay ahayd in aan ka qaadano path waayo backgroundka marka hore ayaan margin kusoo sameynay. ugu hore markaa deertaan shape-kii maadaama midkan uu yahay shape-ka ayaan dooranaynaa. markaan shape-ka aan doorano kadib marka waxaan kasii dooranaynaa electas markaan furno kadibna waxaan kasii dooranaynaa contentiska waxyaaba uu ka kooban yahay in nogula sii gudbiyo ayaan rabnaa. kadib marka waxaan leenahay shape 1 kan oo fur kadib marka waxaan kaga rabnaa pathka wadada animationka ama meesha uu maray animationskiisa ama keyframeskiisa ayaan u baahannahay. marka pathka markaan furno ugu horreyn marka asaga iyo keyframeskiisa waa inaad sidaan iskula doorataa. markaad intaan aad isla doorato kaliya marka waxaad leedahay control c ama waxaad leedahay edit kadib waxaad kasii doorataa copy. hadeertan waxaan copy garaysanay pathka kadib marka waa inaan usoo yara laabanaa baabuurka maadaama aan rabno inaan pathkan hadda aan soo copy garaynay aan ku apply garayno baabuurka waayo wadadan kaliya ayaan rabnaa in uu yara maro. marka baabuurka markaan sidaan u furno kadibna waxaan ka dooranaynaa position waayo gaariga marba lifti iyo right kaliya ayuu u leexanayaa. sidaas darteed marka waxaan adeegsanaynaa positionka. marka positionka aan sidaan u doorano kaliya waxaan leenahay edit kadib waxaan kasii dooranaynaa basti control v. marka hadda sidaa ujeedo waxaa meeshan si toosa nogula soo yargelinayaa keyframeska. marka hadda sidaa ujeedo haddaan play aan dhahno baabuurka dhaqaaq ayuu sameynayaa laakiin sida u jeedo baabuurka si qaab dara ah ayuu u socdaa. sida u jeedo wadada qaabkan ayuu u socdaa. xoogaa yar errorskan yar haddaad ku yar aragto kaliya waxaad yara dooranaysaa
gaariga layerkiisa ayaad dooranaysaa kadib marka waxaad leedahay right click kadibna waxaad kasii dooranaysaa transform marka waxaad kasii dooranaysaa auto orientation automatic ayaa laga soo gaabiyey in uu si automatic ahaan asiga uu kugu sameeyo ayaad u yaradaanaysaa kadib markaad ku dhufato waxaad dhehaysaa orient long path marka asaga ayaad dooranaysaa ofta sidaas ayaad ugu yara qaadaysaa kadib marka waxaad leedahay okay marka hadda okay aad daado sidaa ujeedo gaarigaaga wuu is yara qoloociyey sababtay tahay automatic la'aan markuu samaynayo adiga ayaa lagaa rabaa haddana wadada inaad u yara saxdo kaliya waxaad dooranaysaa baabuurka kadibna rotation maadaama qoloocu ku jiro rotationkiisa ayaad sidan u yara saxaysaa marka hadda sidaa ujeedo baabuurka qaab wanaagsan ayuu u yara soconayaa qaab wanaagsan hadba marka waxay kuugu xiran tahay in adiga baabuurka aad iskeelkiisa iyo wadadani aad si wanaagsan haddaad u samayso si wanaagsan ayuu kuugu yara samaynayaa sidoo kale marka haddaadan u baahnayn laynkani guduudka aan haddaa paint toolka aan ku samaynay kaliya shapeka ayaad dooranaysaa kadibna paint toolka ayaad ka dooranaysaa markaad paint toolka aad doorato stroga ayaad ku dhufanaysaa kadib waxaa leedahay cancel kadib waxaa leedahay okay marka haddeertaan asagoo aan waxba wadanin ayuu kuu soo bandhigayaa oo sidaas ayuu u yara soconayaa marka waxaan rajayn doonaa inaad si wanaagsan aad u fahanteen iyo qaabka ugu fudud ee loo sameeyo car motion oona sameynaya rotation haddii aad videogan ka faa'iiday la garay si youtube-ka ay usii faafiso una sii gaarsiiso walaalahay kale lana wadaagna asxaabtaada muuqaalkan si ayagana uga yara faa'iidaystaan haddii aad noogu yara cusub tahayna gacmo furan ayaan kuugu soo yara dhaweynayaa adigoo taabanaya calaamadda subscribe-ka kadibna furanayo gambaleelka si ay kuu soo gaaraan muuqaal walbo aan soo gelino waana ku mahadsan tahay daabashada muuqaalkani inta badan janaalkan waxaan uga hadlaa arrimaha multimediaha intaas kadib waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waa inoo muuqaal kale guuleysta